haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxay noo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Ismaan. kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. weerar argagixiso ayaa toddobaadkan lagu qaaday laba masjid oo ku yaala dalka New Zealand, halkaas oo lagu dilay 49 qof, waxaana argagax, caro iyo lama filaan ay ku noqotay dunida. mid ka mid ah kooxaha weerarka fuliyey oo rumaysan yahay inuu yahay xagjir Australiana ayaa si toos ah muuqaal ugu baahinayay weerarka markuu geysanayay. dunida ayaa siyaabo kala gedisan u cambaaraysay dadka dhintay, waxaa ku jira dad Soomaali ah. Saare Axmed oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Christchurch oo ay ka dhaceen weerarada argagixiso ayaa VOA toddobaadkan la hadashay kadib markii weerarkaasi uu dhacay, waxayna faahfaahin ka bixisay sida ay wax u dhaceen. magaalada waxaa la yiraahdaa Christchurch waxa ku taala jasiiradda koonfur iyo koonfur saasi ku taalaha magaalada waxa weeye dad muslimiin oo xooga away joogaan ilaa saameeyna 3,000 oo qof iyo ka badan marka waqtiga oo salaada duhurka noo ahay salaada jumca lagu jiray labada masaajidda mid weyn waaye midna waa mid yar marka weerar lagu qaaday marna waxa la leeyahay laba nin ayaa jirta oo wax weerareen marna hal nin marka magaaladu waa xiran tahay lockdown lagu sameeyay iskuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meeshii uu joogay ayaa la joogso. taasi waxa ay ahayd Saare Axmed oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada uu weerarku ka dhacay ee Christchurch ee waddanka New Zealand, waxaana ay u warramaysay VOA toddobaadkan. dhacdooyinka kale toddobaadkan dhegeystayaal aan bayno waxaa ka mid ah maxkamadda degmada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa qaaday kiiska dacwad gabar 14 sano jir ah oo guur lagu qasbay. maxkamadda ayaa go'aamisay in gabadhan oo ninka ay ku dareen qoyskeeda sida la sheegay laga furo, taasoo markii dambena uu aqbalay ninkii gabadha lagu daray. Cabdikariin Olol, wariyaha VOA ee gobolka Sool, ayaa wareystay gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamuud Warsame. wuxuu ku saabsan dacwadii tacadiga ahayd ee gabadhii ahayd loo jeeday dacwad saaqaadan oo ahayd fatmada ahayd haddaan arinta ka warbixiyay waxa weeye gabadhaasi dacwada ku shaqeeyay ee dacwada soo gashay. gabadhaas waa gabadhii oo ku jira nin lagu meheriyay oo si khasab loo guuriyay iyadoo raalli ka ahayn oo aan gaarin oo xitaa aan gaar xilligii mahal guurin lahaa dabada dhibaatooyin badan baa la soo marsiiyay. waxaa dhacay intii la xidhay in qasab guriga lagu geeyay inay carartay Hargeysa laga soo qabtay markii ay ku jir bay ahayd. kiiskaas maxkamadda hor yimi waxaan sameynay waxaan raadinay aabaheed kii qasabka lagu guuriyay intii hooyadeed arinta haddii aanu ka baaran dignay waxaan ogaanay dhacay tacaddi weyn oo dhibaato ka dhacday meesha oo gabadhaas muddo 3 sano ay ku jirtay carar iyo anaha in xal lagu hayo khasabina lahayd ma ka ninkaas ay guurgalmeeyay ninkana ma doonayo dacwadiyaasi soo amba 3 bisha dacwada ku aan baan ka gaarnay duwaankaas oo aan cadaad ku dhisan oo ahaa inaan gabadhan ninkii waa laga furay magdhow waa loo soo qaaday dacwadaasina si cadaad ku dhamaatay. kaasi waxa waa gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamuud Warsame oo u warramayay wariyaha VOA Cabdikariin Olol. dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah weeraraan 5 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 40 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacay toddobaadkan deegaanka Goobgaduud Buurey oo ka tirsan gobolka Baay, halkaasoo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo. qaraxan ayaa ka dhacay Arbacadii ka soo gudubnay suuq ay maalin kastoo Arbacay isugu yimaadaan dadka deegaanka iyo reer miyiga si ay u kala iibsadaan badeecooyinka iyo xoolaha. 6 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib isku horimaad toddobaadka ka dhacay magaalada Gaalkacyo. isku horimaadkan ayaa la sheegay inuu salka ku hayay muran la xiriira lahaanshaha dhul ku yaala dhinaca waqooyiga magaalada Gaalkacyo. duqa degmada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland Yaasiin Cabdisamed Cumar ayaa wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ugu warramay dagaalka dhacay iyo khasaaraha uu dhaliyay intuba. dagaalkaasi marka hore wuxuu ka bilowday xaalad dhulkana mushkiladiisu waa mushkilad caam oo sidan guud ahaan Soomaaliya uga jirta gaar ahaan Puntland uga jirta. marka xaaladaas marka hore saakay dhacday dagaal beeleed isu bedelay milatariyaha dad ardaal oo aan khiyaar ahayn baa halkaa ku diray. dhimashadu hadda inta la xaqiijiyay waa 6, dhaawacuna waa 7 iyo maamulkii iyo waxbaradkii magaalada joogay ismadii baa hadda jooga meel goobtiina hadda maragta ku sugan yihiin. adigu insha Allah waxaan rajaynaynaa intaas ay dhigto kusimo. kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland Yaasiin Cabdisamed Cumar, wuxuuna u warramay wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
ciidamada militariga Mareykanka ayaa toddobaadkan xaqiijiyay inay duqeyn ay ka geysteen deegaanka Dar es Salaam oo u dhow magaalada Awdheegle gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen 8 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Ciidamadaasi waxay taageerayeen ciidamada commandoska ee Soomaaliya danab kuwaas oo Al-Shabaab beegsaday. Al-Shabaab dhinacooda waxay sheegteen inay dishay askari Mareykan ah isla mar ahaantaasina ay iska caabiyeen weerar uga yimid sida ay yiraahdeen ciidamada Mareykan iyo Soomaaliya. Gudoomiyaha degmada Awdheegle Maxamed Aweys Abuukar Maxmiyarow ayaa toddobaadkan iiga warramay weerarka ay ciidanku geysteen iyo khasaaraha ka dhashay. weerarkan Awdheegle ayuu ka dhacay tuuli ka mid ah waa weerar noocaas ah oo ciidan ku talgal targetkii ay ku ahaayeen marka dagaalka Awdheegle ka dhacay tuuli ka mid ah Dar es Salaam yiraahdo waxaa si toos loo weeraray saldhig oo ay magaalada isha maxay koonii ay ku lahaayeen oo harta dhibaatooyin horumar lagu geystay burbur hantiyada loo geystay iyo mid military ahba nasiidarase saddex matruuc oo xawaa ah ayaa guryo oo shacabka ay leeyihiin tuuladaasi oo degan ayay ku dhaceen. Madaafiicdaasi marka xagee bay ku dhaceen maxayse geysteen? Waxay ku dhaceen goob oo ganacsi oo farmashiya meel ahayd oo goobtaasi waa ku baaba'day iyo farmashiyaasi guri ku dhow oo isna sidaas oo kale mid kale ay ku dhacday. dhibaatada ay geysteen waxa waaye guri oo nin magaciisa Cali awood yiraahdo ay ku dhaceen ninkaas adiga gabar oo adeer u yahay iyo wiil si uu dhalay wiilkii waa ku dhaawacmay gabadha adeerku u yahayna way dhimatay nasiibdaro dhaawacyada ayaa meesha laga soo qaaday isbitaalada Xamar laga soo gaarsiiyay rabay jidkan ku dhimatay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Awdheegle Maxamed Aweys Abuukar Maxmiyarow oo toddobaadkan khadka telefoonka degmada Awdheegle igu warramay. halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aynu ku guda jirnay kadib dhicitaanka diyaaradda Ethiopian Airlines ee Boeing 737 Max 8 ayaa waxa dalal dhowr oo dunida ku yaala ay joojiyeen isticmaalka diyaaraddaasi iyadoo shirkaduna ay sheegtay in la joojiyey isticmaalka diyaaraddaasi oo sida la sheegay muddo 8 bil gudahood laba diyaaradood oo noocaasi ay dhaceen 157 qof oo ka soo kala jeeda 33 wadan ayaa ku dhintay shilkaasi oo toddobaadkan ka dhacay wadanka Itoobiya gaar ahaan dowladka magaalada Addis Ababa kadib markii diyaaraddaasi ay ka duushay Addis Ababa kuna sii jeeday Nairobi Kenya. dadka dhintay waxaa ku jiray Soomaali oo meelo kala gedisan ka kala yimid qaarkoodna dhalashooyin kala gedisan haystay. dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaan intaas ku soo gabagabaynayaa anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo nila socodsiinayay tan kulanka dambe nabadgelyo.